shanta bishan ayaa waxaa si toos ah ula soo xiriiray Faadumo Nuur Cumar oo la tacaalaysa xaaladda caafimaad wiilkeeda oo jacayl iskaga soo tuuray buundada. Laba qof oo isku bahaystay dhaca ayaa ugu horreyn waxaa lambarka maamada soo wacay haweeney oo iska dhigayso inay caawinayso wiilka bukaanka iyadoo sheegaysa in baabuur hoome uu ku shaqeysto haddii uu caafimaado ay u soo dhiibtay iyadoo ku xirtay qof kale ee iska warqabaan. Baabuurka waa soo wadaa lacago isa xiga oo isku maalin uu dalbaday ayay u direen ilaa uu ka dhaho siinka dheer ayaan joogaa xamar ma soo geli karo ilaa taarko aan u jaro gaariga soo dira lacag. Waxay isku noqotay lacagta guud ahaan ay direen $500 balse intaasoo dhan maalinta ay dhacayeen waxay joogeen qoyska Sanco waxay ku sii jeedeen isbitaalka oo wiilkooda ayaa qaniin galayay. naaga isoo wacdi anoo joogo Sanco joog wasbaaro hadlaa wiilka staal rawan oo wad isbitaalkii liisoo naqi xal wiilkii qaliin oo baahan yahay ee quraan soo saar anigoo soo laabti Sanco joog isbaaro Sanco taagan naaga isoo wacdi naagtii soo wacdi waxay tiri Faadumo Nuur Cumar adig miyaha waxay tiri Cabdi Maxamed Baawur Cuseeb alu soo dhiibiyarkee baawurka hoomey waay hoomey bacay u soo dhiibay unuko intaana qofood nahay dardarsanay hoomey Cuseeb wiilkeeda inaan u shaqeysto markiis caafimaad helo uniyeysanay anigii runa oo maleeyahay 500 oo wiilku daaweys dhahay oo meel Itaali oo muslim isoo dhiibi muslim ilaahay isoo qaad walaaliyaasheed isoo qaaday ay naaga ii dhacay naaga inay dhacaan horta ko bariima nin horta wax asaleey mala laagta laag fitna wadi naagtan waxay joogtaa magaciisa imaqanay jublaan keek soo hadash naag isaahna oo naag weyn waaye 65 jir amal oo naag ay u qiyaasi codkeeda macnaha oo dareemay aniga waxa dhahay wiilka ma sha Allah maanta Cabdi dhahay qof dad fiicna macna masaakiin ab ilaahay u soo gargaariye markiis caafimaad inuu hoomeedis ku shaqeysto aw niyeyst waa dad oo dhaco uu socdo anina maskaxdeeda ma joogo markii anugii qaliin loo soo sheegay waa naxay warka taa way karkaray wiil oo macna gabadheed qabo oo wiilkay aad qabtay wiilkii uu tiri baaburkaas hal soo wada nin noocaas soo wada ay tiri afgooyam soo baxoya lacag oo baaburku soo wada la siiyo dad maskaxayna manukan ma aheeno hadii oo manakii imaan lacagtii waa loo tuuri lacagta waxa loo tuur koowdii 200 macna ku soo wado amal la isku ogaayay ka bacda din waxa istaan ninkii waxa siiran lacagtan waa yartaaye kaartadii lu sameelay baaburka rabaa wax mar ma soo gal karo ay saas miyaha sidii hadii uu ku darsan lacagtii sidii hadii lagu dhiibay 300 gacanta ka saar ninka lu tuur waa amine bida wiilkii daawadiis ku daaweys 300 ku daaweelay abli dhacay dhacoobi oo dhacaya macna anina ka xanuunsan anugii daawad wal ma daaweys 500 waa lii qaad dheela lii ustay walaaliyaashay sayna qaraan waa marka caloosho sayna qaraan. Shirkadda ayaa tagnay waxay noo sheegay in lacagtii lagala baxay lambaradii soo wacayna dhammaan ay dansan yihiin waxaan ugu sii batay walbahaarka kadib lacagtii aan ku ilaalinaynay caafimaadka wiilkeena markii nagala dhacay aan ogaanay suwixii waa bari waagi hadis bari waxa aadnay hormuud waxa dila fiiri lacag ma bog jirto lacagtii lacag waxa ka dhigtaan xaash sarftadan ifis in ma jirto nabarina ma qabo habeenkii dhanaa ka daan ma qabanay horta maalintii oo 4 casarkii bilaabat sheekada ninkan waa dansiday ilaa habeenkii wax dhan malaazim malhelay si dhahay waa murugan qabatay waxaan warkaan galaal u raacbo anu habeenkii dhan horta muhurdam biilkii soo boodhay miyaha hooye warka amal jidka dhacool u socdaan hooy isku suuq biga aadalay wuxuu ku dhacdoona ma ogniye waxa dhac kartaana nabar macna mobilka dib la'aan oo ku dhaco iidi la diri iidi hadii wax ilma qabtan hooy ma joogtay yireen shiba ka dhaani galaadam kal dirno waa dansan yaabo lamad meel ba dansan yahay kan nabarkiisa waxa waay afar waay ninka iidina nabarkeed nabar 4 waay ha 42 siyeetan 93 yaa wata lambarkaas ninka wata dad badan ayaa ku shaqeysteen lacag ay dhacaan oo ay la xiriiraan qof ay fahmaan in lacag uu haysto ama dhibanay lacag loo aruuriyay waxay ka maraan oo ay kaga sheekayaan halka uu ku jilicsan yahay iyagoo shaar been ah ishuwiya malahan dareen bil aadanimo lacagahaas ay dhacaan waxay ku maareeyaan noloshooda.